loolanka madaxtinimada Turkiga ayaa waxa uu galay marxalad kale. Waxa la isla aaday doorasho kala bax ah oo dhex maraysa madaxweynaha xilka haya Rajab Tayyip Erdogan oo helay 49.4 codadkii la dhiibtay iyo Kemal Kılıçdaroğlu oo helay 44.88. sida nidaamka doorashada u dhigayo, haddii uusan jirin musharax haysta wax ka badan 50%, labada musharax ee ugu codadka badan ayaa doorasho wareeg labaad ah galaya. labada musharax ugu sareysa iminka guul ay sheegteen, laakiinse ma ahan guul ay ku naalaan karaan oo u saamaxaysa inay kursiga ku guuleystaan. Erdogan oo muddo 10 sano ah madaxweyne soo ahaa, wuxuu markan doonayaa inuu 5 sano oo dheeraad ah mar kale loo doorto xilka madaxweynaha dalka. xisbigiisa AK Party iyo kan ay xulafada yihiin ee MHP waxay ku guuleysteen 316 kursi oo ka mid ah 600 ee kuraasta baarlamaanka, sida ay sheegeen tirooyinka hordhaca ah ee guddiga doorashooyinka. dhanka kale, qolyaha mucaaradka ku ah Erdogan waxay xoogooda oo dhan isugu geeyeen hal musharax oo tartanka la gelaya Erdogan, waana tan codad ka badan u soo jiiday Kemal Kılıçdaroğlu. 28 bishan shanaad ee May waxaa dib la isugu soo celin doonaa Kılıçdaroğlu iyo Erdogan, waxaana tartanka ka haray labadii musharax ee kale. haddaba markan aan fiirino arrimaha ay labada dhinac u adeegsanayaan ololaha doorashooyinka, musharaxiintu waxay isku hayaan dhowr arrimood oo go'aanka codbixiyaasha saameyn ku leh, waxaana ka mid noqonaya dhaqaalaha. Turkigu waa dhaqaalaha 19aad ee dunida ugu awoodda badan. GDP-giisu wuxuu gaarayaa 906 bilyan oo dollar intii u dhaxaysay sanadihii 2006 ilaa 2017. dib u habeyn ay samaysay xukuumadda xilligaas ee Erdogan waxay kor u qaaday dhaqaalaha dalka, hoosna u dhigtay saboolnimada iyo shaqo la'aanta. balse dhowrkii sano ugu dambeysay kobaca dhaqaalaha Turkigu hoos ayuu u dhacay, taasoo sababtay cadaadis gudaha ah iyo dibadda. waxaa sare u kacay badeecooyinka uu Turkigu soo dhoofsado, waxaa kordhay sicir bararka iyo shaqo la'aanta. caabuqii COVID-19, dhulgariirkii horaantii sanadkan, iyo duulaanka Ruushka iyo Ukraine ayaa saameeyay dhaqaalaha dalka. waxyaabaha kale ee saameynta ku yeelan kara ololaha doorashada waxaa ka mid noqonaya arrinta qaxootiga iyo soo galootiga. Turkiga waxaa ku dhaqan qaxooti gaarayo 7 milyan oo qof, kuwaas u badan dad ka soo jeedo wadamada Suuriya, Afghanistan iyo Pakistan. dhaqaale xumada dalka soo food saartay waxay abuurtay nacayb iyo qaxootiga in lagu eedeeyo inay culays dhaqaale saareen dalka. hogaamiyaha mucaaradku wuxuu ku dhawaaqay inuu qaxootiga iyo soo galootiga dalalkooda u tarxiili doono haddii uu xilka madaxtinimada ku guuleysto. madaxweyne Erdogan dhankiisu wuxuu dhowaan sheegay qaxootiga Suuriya in dalkooda dib loogu celin doono oo xukuumaddiisu ay wada xaajood arrintaas ku saabsan la geli doonto nidaamka Suuriya ee uu hogaamiyo Bashar al-Assad. sidoo kale, ololaha doorashada waxaa saameyn ku yeelan karta siyaasadda arrimaha dibadda. Turkigu waa xubin ka mid ah xulafada NATO ee uu Mareykanku hogaaminayo, muddo dheerna wuxuu saf kula jiray dalalka reer galbeedka. balse madaxweyne Erdogan waxa uu dejiyey siyaasad arrimo dibadeed taasoo sheegay inay sare u qaaday magaca Turkiga ee fagaarayaasha dunida. waxa uu xiriir la yeeshay dalalka Carabta, Afrika, Aasiya iyo Latin America. waxa uu horumariyey awooddiisa difaaca, isagoo abuurtay warshadaha hubka soo saara una dhoofiyey caalamka. waxa uu shidaal ka baaray badaha Mediterranean-ka iyo Black Sea ama badda madow. waxa uu ka soo horjeestay siyaasadda Israa'iil ee Falastiin oo uu ku sheegay mid gumaysi ah iyo midabta koor. waxa uu gantaalada difaaca cirka ka soo iibsaday Ruushka, taasoo ka cariisisay Mareykanka. waxa uu iska diiday inuu ku biiro go'doominta reer galbeedka ee Ruushka kadib duulaanka Ukraine. dad badan waxay u arkaan arrimahan in ay ka leexisay Turkiga siyaasadda xulafada NATO, taasoo keentay in reer galbeedku colaadiyaan madaxweynaha shacbiyadda badan haysta ee Erdogan. dhan walba labada musharaxba waxay doonayaan guusha ay doonayaan musharaxiinta waa mid hadba ku xiran codadka mid kasta oo helo. dalkeena haddii uu dhahay wareeg labaad aada, waan ku guuleysan doonaa wareegga labaad, ayuu yiri Kılıçdaroğlu oo taageerayaashiisa kula hadlayay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara. Turkey is headed to a runoff election on May 28th. Milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca Master Kılıçdaroğlu oo ah 74 jir doorashooyin hore u soo istaagay, hase yeeshee ku guuldareystay. waxa uu aaminsan yahay in haddii farqiga u dhaxeeya isaga iyo Erdogan uu yahay 4% uu qaadi karo guusha. waxa uuna ku tashanayaa codad dheeraad ah inuu ka kasban karo. madaxweyne Erdogan waxa uu madaxweyne soo ahaa 10 Agoosto 2014. horena wuxuu soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka sanadihii 2003 ilaa 2014.
waxauna doorashadan ku ogaaday awoodiisa iyo inta ay gaarsiisan tahay iyo tan mucaaradka. markan aan fiirino fursadaha ay haystaan musharaxiinta doorashooyinka, labada dhinacba waxay haystaan fursad 2 asbuuc ah oo ay dib ugu eegi karaan istiraatiijiyadooda siyaasadda, dibna doorasho ugu diyaar garoobi karaan. waa 2 toddobaad oo siyaasiyiin kulanno iyo wada tashi ah. doorashadan waxay dibadda soo dhigtay kala qaybsanaanta dadka Turkiga ee markii ugu horreysay ku wajahan hoggaanka dalka muddo 100 sano ka hor laga joogo, tan iyo xilligii Mustafa Kemal Atatürk. waxaana meesha ka baxay saadaal ay sameeyeen reer galbeedka oo ahayd in Kılıçdaroğlu uu noqon doono madaxweynaha 13aad iyo Erdogan oo taageero badan oo ku tashanayay aysan meesha ka soo bixin. markan aan fiirino taageerada musharaxiinta ka haray tartanka, Erdogan iyo Kılıçdaroğlu waxay doonayaan inay xaqiijiyaan sidii ay u soo jiidan lahaayeen labadii musharax ee tartanka ka haray. inkastoo ayna codadkoodu badnayn, haddana kaalmo u noqon kara ciddii ay siiyaan. gaar ahaan waxaa aad isha loogu hayaa Sinan Ogan oo helay 5.2%. dhinacii uu raaco ayaana aad loogu badinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada. mucaaradka waxaa dul saaran daruuro hubanti la'aan ah, inkastoo ay weli ku haminayaan in saaxiibkood uusan meel cidla uga tegi doonin, xaqiiji doonana guusha. Erdogan wuxuu isagu doonayaa oo kaliya waa wax ka yar 1%. haddii ay isfahmi waayaan dhanka mucaaradka iyo tartamaha saddexaad ee Sinan Ogan, waxay sii xoojinaysaa rajadiisa ah inuu mar kale noqon karo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. ilaa hadda labada dhinac wax dhibaato kama sheegan dhanka guddiga doorashada, mana jiraan wax isdabamarin ah ama maamul xumo ah. İstanbul! Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor.